wax akhrisku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn ee bani aadamku uu gaaray. waa isha ilbaxnimada iyo horumarka bulsho walba. haddii aad aragtid bulsho horumarsan, heerka nolosheedana sareeya, hubaal waxa inay bulshadaasi tahay bulsho wax akhrisa oo aqoonteedu ay kobcdo. haddii aad aragtid bulsho liidata oo nolosheeda hooseyso xag dhaqaale iyo xag nololeedba, hubaal waxa bulshadaasi inay tahay mid ku liidata wax akhriska iyo aqoonta. haddii aadan waxba akhrin, waxaad ahaanaysaa qofka aad tahay, waxaadna ku sugnaanaysaa ama ka hoos maraysaa heerka aad ku sugan tahay. haddii aad wax akhrisidse, waxaa hubaal ah in noloshaada iyo heerkeedu labaduba ay kobci doonaan, horumarna aad gaaraysid. Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka ugu wax akhriska yar dhammaan dadweynaha adduunka, waana sababta keentay inaynu nahay mid ka mid ah bulshooyinka ugu saboolsan dhinac walba oo nolosha markii la barbar dhigo dadweynaha adduunka. inteena badan waxaa laga yaabaa inayna weligeenba buug kala bixinin oo aynan bilaabin, iska badaa inaynu dhammayno oo buug akhrino. waxa aynu nahay bulsho oraaheed, dad jecel inay hadlaan balse gebi ahaanba aan jeclayn inay wax akhriyaan. ogow, hadalku waa wax la barto, waa aynu baranay, sidoo kalena waa aynu baran karnaa inaynu wax akhrino. haddii aad joogtay sidaad isku dayday inaad maalin walba wax akhrisid 10 daqiiqaba ha ahaatee, hubaal waxaa ah in noloshaada wax badan iska bedelayaan, aadna la qabsan doontid oo yeelan doontid dhaqan iyo caado wax akhris oo joogto ah, taasoo noloshaada horumar weyn usoo kordhin doonta. ogow, maalgashiga ugu weyn ee aad samayn kartid waa kan aad naftaada ku maalgelisid. waxa ugu weyn oo qofku naftiisa ku maalgeliyana waxaa weeye baa la dhahaa inuu yahay mid wax akhriya oo aqoon kororsanaya. waa inaynu ka gudubno inaynu ahaano bulsho oraaheed oo aynu u gudubno bulsho akhris iyo aqoon kororsi. 5 sano u dambeysay bulshada Soomaalida runtii waxa aad u soo kobcayay heerkeeda wax akhris iyo danaynta bulshada u hayso inay noqdaan kuwa wax akhriya oo ay ka sii gudbayaan heerkii hore ee ahaa bulsho oraaheed. waxa aad u soo badanaya bandhigyada buugaagta iyo carwada buugaagta lagu soo bandhigayo. waxaana aad u soo badanaya bulshada doonaysa inay wax akhrido. waxa aad u soo kobcaya dhalinta iyo bulshada doonaysa inay wax qorto. taasi waxay tilmaamaysaa runtii bulshada Soomaaliyeed haddii ay sidan ku sii socoto, gebi ahaanba inay noqon doonto bulsho horumarsan oo dadka adduunka la tartami karta, heer fiican oo nololeedna gaari karaysa. dooro inaad ka mid noqotid kacaankaas cusub ee akhriska iyo horumarka. noqon mid wax akhriya, kana faa'iideyso aqoonta adduunka taala ee u baahan inaad akhrisid oo kaliya. e-Soma Books waa shirkad u adeegta bulshada Soomaaliyeed. waa shirkad u adeegaysa akhristayaasha iyo qorayaasha Soomaalida. waxa ay ka shaqeynaysaa laba waxyaabood oo aad u muhiim ah. tan koowaad oo ah in ay qayb weyn ka qaadato in aqoonta adduunka taala soo minguuriyo oo loo soo rogo afka Soomaaliga si bulshada u hesho aqoon walba oo af Soomaali ay ku heli karayaan. tan labaad ayaa ah isku xirka qorayaasha iyo akhristayaasha Soomaaliyeed. shirkaddu waxay sahlaysaa in qofka qoraaga iyo buugiisa ku soo bandhigi karo e-Soma Books, looguna dadaalo in la gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hab online ah oo qofka akhristahay meel kasta oo uu joogo uu ka akhrisan karayo. taas macnaheedu waxa weeye in qoraagu uu buugiisa ku dhex iibin karayo esomabooks.com, qofka akhristahana uu kaga iibsan karo qoraaga meel kasta uu joogo. sidaasna qofka akhristaha meel kasta buugi uu doono uu ku gaari karayo. waxaad ogtahay runtii ku akhrinta buugta afka Soomaaliga markaad ku akhrinaysid waxaad ka faa'iideysaa aqoon iyo farxad iyo dhibyari akhriskaas oo ku noqda. markaad af qalaad ku akhrinaysid waa aad fahmaysaa, balse markaad afkaaga hooyo ku akhrinaysid waa aad dareemaysaa waxaad akhrinaysid.
buugta aan anigu tarjumay digtoor jaamac ahaan ilaa iyo hadda ee aad ka heli kartid Isoma Books waa ilaa iyo 5 buug oo kala ah Think and Grow Rich, Fikir oo hodan noqo, The Richest Man in Babylon, ninkii Baabila ugu hantida badnaa, As a Man Thinks, qofku waa sida uu fikiro, You Can Win, waa aad guuleysan kartaa, How to Stop Worrying and Start Living, sida laysaga joojiyo walwalka oo loo bilaabo nolol fiican. sidoo kale waxaa ka helaysaa buugaan anigu aan qoray ee la yiraahdo xalka gaaska sonkorta ee dhiigkarka. wuxuu ka hadlayaa maxaa daara maxaa sadamiya cudurradan. sidoo kale Isoma Books waxaa ka helaysaa buugaag kale oo af Soomaali ku tarjuman. waxaana kaloo ka heli doontaa buugaag kale oo anigu tarjumo iyo buugaag kale oo la tarjumo mustaqbalka soo socda. markasta waa sii badan doonaan buugaagta aad ku heli doonto afka Soomaaliga.